xubnaha guud ee ururkan memberska ah ama xubnaha ka tirsan ururkan waxay kor u dhaafayaan 20,000 oo macallin 20,000 ee macallin waxay isku jiraan KG ilaa iyo heer jaamacadeed bay isku jiraan non formal iyo formal waxbarashadu labaduba macallimiinta wax ka dhiga waxay ka tirsan yihiin xubnaha ururka macallimiinta ee deegaanka ay ka tirsan yihiin waxyaabaha activity-yada ee aan qabanay intii eega muddada ahayd anagu aan shaqaynaynay haddii aan iyadana wax ka taabto kulli waxyaabo badan oo daily routine oo maalin walba aan qabano yaa jira laakiin waxaasi wax la wada taaban karo la wada sheegi karo ma laakiin waxaan rabaa oo kaliya inaan waxyaabaha waaweyn ee muhiimka ah aan qabanay muddadii eega aan shaqaynaynay ee dhowrka bilood ahayd inaan wax ka yara taabto ta koowaad waxa weeyo kororka guud mushaarka barayaasha ku darsamay ugu darsamay mushaarkooda inaan annaga iyo xafiiska waxbarashada gaar ahaan qaybta TDB-da aan ka wada shaqaynay oo ilaa haddan aysan jirin wax macallin ah oo aan mushaarka u kordhin iyadoo laga yaabo kulay inay iska jiraan shakhsiyaadyo uu ka booday IT-gu oo ama farsamo ay mataqaana ku khaldameen isla xilligaana aan khaladaadkii diyaar u nahay oo maalinta aan saxno macallimiinta mushaarkooda hawshaasi waa hawsha koowaad aan leeyahay aad baad uga shaqayseen hawsha kale ee ayadana ku xigto waxa weeyo dhisida ururka macallimiinta ee degmooyinku markaan anagu imaanay muddo dhowr sano ka hor ah ado intii isbedelku uu jiray ururka macallimiintu maamul fiican ma lahayn gudoomiye ma dhisnayn xubno kale oo fara badan oo wax qaban kara ma jirin hal wiil baa joogay xubnihii way burbureen marka ururku waxoogaa uu yara kala daadsanaa intii isbedelku eega muddadii 3 sano iyo wixii eega uu soo jiray markaan anagu imaanay baa shaqo ugu horeysay waxaan u imaanay iyadoo ururka macallimiinta ee degmooyinku ay kala daadsan yihiin oo aysan jirinba marka waxay noo qaadatay in aan muddo aan ka shaqeyno in aan ururkii soo yagleelo ka soo dhisno degmooyinkii ka shaqaysiino taasoo runtii shaqo culus ahayd annaga oo duruufo badan ay nagu xiran yihiin sida gaadiid la'aan oo kaleeto degmo ilaa iyo degmo in aan u gudubno oo aan tagno isla markaa ururka aan ka soo dhisno waxoogaa dhibaato culus bay nagu qaadatay wixii degmo ah aan gaari karana waan gaarnay wixii kale tan waxaan u asaan garaynay madax xafiisyadada iyo fokolada waxbarashada ee jooga halkaas annagoo wakiilanay inay ka dhisaan ururka macallimiinta degmadaas runtii si fiican bayna noogu suurta gashay